in aad horta fiidiyowgan waxaan u duubayaa Soomaali oo dhan qof kasto arkana waxaan ka rajeynayaa inuu share gareeyo Ilaahay dartiis loo u share gareeyo kaas waxaan rabaa dad badan inuu gaaro in adeero macaanow meeshaan waxaa yaala horta maanta oo dhan shaqadan ku dhex ooynay oo dadka Ilaahay oo dhan ba isugu ka yimid oo nooc kasta leh waxa ay ku dhacay in adeero Soomaaliya aniga dadkayga si xun baa loogu galaa haddaan hadda ka soo qaadano wiilkii u dambeeyay ku dhintay dagaalkii meeshan ka socday xitaa magaciisa lama soo qaadin cunugeeda 10 sano looga xukumay gabar la baxay weligeed baa wiil intuu gabar la baxo la arari jiray hadday rabaan isagoo uu gabadha iyo shariik loo soo celin jiray meel waxaas lagu xukumay weligeed ma arkin boosaas waa ogeedeen reer baa gurigooda loogu dhacay ilma yariisa madax ag laga saaray reer dhan la soo duuduubay social media la soo galiyay cunugaas iyo familkaas bal reerkiina ka soo qaad ilmahaas yarka maskaxiyan bay wax u gaarayaan hadda xoogaa hadday u gaareen sababtoo ah dadku social media isticmaalaan bus arki doona caruurtaana ku ayn doonta shaqada iyada haddaba ha iska ahaatay in adeerow maanta haddaan wax barto oo shahaado haysto tago anigu for example hadda gaalkacin ka soo jeeda haddaan tago istaalka dhagacad meeshan degan istaalkaas u dhawe aan shaqo ka doonto anoo dhaqtara oo shahaadooyin wata in adeer reerkayga la weydiinay markaas la leeyahay uma qalanta shaqadan afcad baa hadii rabo lagu leeyahay booskaaga waxa la gelinayaa qof neeris ah aan dhaqtar ba ahaynba in adeero macaanow annaguna waxaan idin awoodno in la garab taagana oo maantay aniga hadda ku sheegay waxa u dhacay markuu qof Soomaali soo waco dad badan baa soo wacay aniga oo weydiisanay inay reerkayga ku helaan passport marka soo wacaan ugu dhahan duniyo walaalay meel baan ku xiranaha waa la haystaa haddaan sheegan waayo reerka aan ka soo jeedan adinka idin sheegtay waa la celinayaa in adeero halkaas ay xanuunaysa markuu qof Soomaaliya meel lagu haysto oo waxa yar aniga iiga baahan yahay ma nasan kara ilaa qofka meel aan ku ogaado hal mar baan ayaan dhaweydo wax socodeen wiil baan waxaan eri kuma sheegayaan ku ir hal ugu celiyo ilaahan ku dhaartay habeenkii labadaas is saar waayaan ku ir hadda waxa ii sawirmaysa intuu soo jeexay iyo hadii inta la qabto wiilkaas dib loo celiyo yiisaan wax ugu qaban karay middle of the night baantaan balooga ka qaaday baari waxaad rabtay inaan ku sheegay weydii meesha hadda dadku isku adkaynayaan wuxuu yiri macal reerku afbeelayeen afkooda sheeg bal gulay wadiga dhamaantiis anagu sidaasaan meel walba idin garab taagano waxba aan idin diidin maxaa adinku meel walba noogu taagantiin Soomaaliyeed midda kale waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaaliyeed qof kasta oo ololahan igala qayb qaadan kara oo dhalinyaro Soomaali ah cid doonaha ka soo jeedo wax badan baa ka bedeli kartaa waxaan rabaa inaan wax ka bedesho waxa weeye dadkaygu waxay ku dhex fiirsan yihiin Soomaaliya oo dhan maanta Puntland meel baa laga xukumaa waxaan anigu leeyahay ma samaysan karo dhibaatada ugu badan oo dadkayga haysato rabaa inaad fahantaan waxa weeye ma haystaan gobol ayagu ay leeyihiin oo saldhigu oo ay ku cararaan diixta wax ka soo gaaraan meelaha kale iminka wiilka yaro madaxa agta laga saaray haddaan anagu gobol leenahay waa laga soo rar lahaa reerkaas meesha dadkooda la dhex geeni lahaa iyo meel aan lagu cunsuriyeenay in adeero macaanow waxaad dhihi doontaa adinkoo ma gobol samaysataan dhulku uu banaan yahay runtaa way horta 80% Soomaaliya wada banaanta laakiin meesha gacanta saartid reerba kugu qabsanaya marka in adeerow anoon meel saldhig haysan horta dad lama dagaali karo oo anigii aan meel deganeyn horta ka war hadii dabaq ba halkan ku yaa intaas dad baa degan reerka ugu korayaan ah dhulka haduu dab ka dhaco
dabaqa ugu hooseeyo qofka ugu horeeyo dhimanaya waa qofka kor degan mana soo boodi karo mana soo degan karo aniga dadkayga cilada haysata waa taas meel ayna ka soo boodi karin aysan ka soo degan karin bay degan yihiin waxaan rabaa qof kastoo dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo Ilaahay yaqaana oo u jeeda meesha xaaladda ka jirta inuu dadkayga u istaago si ay u helaan in adeer meel ay leeyihiin adiguba in adeer xil baa ka saaran in adeer maahan adigaba waa dadkaagii oo kale waa dadkaagii qayb ka mid ah wax badan baa ka bedeli kartaa hadaa u istaagtid markaan leeyahay inaad u istaagtidna ma ahan inaad dowladaha caalamka u soo baridid ma ahan dadkiina dhexdeeda inaad ina adeer maartay ka wada hadashiin dadkan dhibaatada ay ku jiraan inta aragtaan ina meel isugu dubtaan